Degaha dadka adduunka ayay ku nagaatay kadib markii ka soo muuqatay taxanaha caanka Isbaanishka La Casa de Papel heesta Bella Ciao. Dadka qaar waxay u haystaan in filimka loo curiyay heesta, balse waxay leedahay taariikh ka duwan taasoo mug weyn. Inkastoo filimka lagu jilay waddanka Spain, haddana heestu waa Talyaani, waxaana loola jeedaa Bella Ciao, nabadgelyo gabadhii quruxda badnayd. Iyadoo laga shidaal qaadanaya eray bixintaas ayaa heestani adduunka ugu fiday, waxaanay asal ahaan ku qeexan tahay taariikhda gobonimo doonka iyo kacdoonnada bulshada. intii lagu guda jiray qarnigii hore afartameedyadiisii waxaa shacabka Talyaanigu u adeegsadeen heestan dhiirigelinaya inay ka xoreeyaan waddankooda macangaga iyo kaligii taliska. Markii uu bilaabmay dagaalkii labaad adduunka waxay si xawliya ugu fiday xoogagii iska caabinta ee nidaamkii arxanka darnaa ee Benito Mussolini, gaar ahaan xisbiyadii aaminsanaa fikradda shuuciga oo waagaas ahaa cadowga ugu xag jirsan ee Mussolini. nidaamkii kaligii taliska kooxahan cagta hoosteeda ayuu geliyay. heestuna waxay noqotay astaanka caan oo ka babanaysa Talyaaniga. barbilowgii fiditaankeedu waxa uu ahaa beeralayda bariiska ee Talyaaniga haweenkooda ayaa u qaadi jiray qaab hees hawleed oo kale oo ay fariin ugu dirayaan haweenku inay awood u leeyihiin qabashada shaqo kasta oo karti u baahan. intaa dabadeed waxaa xoog u adeegsaday jabhadaha dagaalka iyo bulshada dulmidiidka, waxaanay noqotay heestani mid astaan u ah kacaanada iyo gobonimo doonka dalka Talyaaniga. intaasoo dhan haddana weli lama garanayo qofka curiyay heestan, waxaana sabab looga dhigay in la minguuriyay ereyadii asalka ah cid kastaana u samaysatay ereyo ku habboon halgankooda iyo fikradda uu xambaarsan yahay. intaan la soo saarin filimka La Casa de Papel 10 sano ka hor, waxaa jariirad Faransiiska ka soo baxda ay maqaal ka qortay halka laga soo dheegtay heesta laxankeeda iyo qaabka loogu dhawaaqayo ereyada inay tahay hees Yahuudiya laguna magacaabo Colin oo la alifay sanadkii 1919. intaa dabadeed waxaa la ogaaday in nin dhismaha guryaha ka shaqeeya oo Talyaani ah inuu soo iibsaday cajalado dhageysi ah oo heesaha Yahuudda reer Yurub ee kacaanka ku salaysan. si xawliya ayaanay adduunka oo dhan ugu fideen. 28 bishii Abriil sanadkii 1945 Benito Mussolini ayaa la dilay. shacabka Talyaaniguna waxa uu helay xorriyaddii uu ku taamayay kadib sanado badan oo maamul xun uu ku hoos jiray, waxaanay ku celceliyeen heestoodii caanka ahayd ee Bella Ciao. heestu waxay u soo gudubtay adduunka waxaanay noqotay astaan xaqiiqo ah oo kacaanadu adeegsadaan, iyadoo loo bedelay afaf kala duwan, gaar ahaan filimkii ugu dambeeyay ee Isbaanishka ah ee La Casa de Papel. dunida Carabeed ayay soo gaadhay, waxaana lagu arkay iyadoo adeegsanayaan kacaanadii Ciraaq, Suuriya iyo sidoo kale Falastiiniyiinta. inkastoo dib loo cusboonaysiiyey dadkana dhagahooda uu dib ugu soo celiyey taxanahani, haddana bulshada Talyaaniga si kulul ayay u dhaliileen adeegsiga heestan ee filimka gudihiisa. sababna waxay uga dhigeen in cidda heesta qaadaysa ay yihiin shufto ama tuug. adeegsiga heestuna uu xidhiir la leeyahay iska caabinta iyo kacaanada cuddoon ee bulshada. taxanuhu waxa uu ku salaysan yahay koox tuuga oo aan waxba khasaarayn, iskuna bahaystay siday u fulin lahaayeen xatooyadii ugu weyneed abid, dhismaha lacagta lagu sameeyay bangiga Spain.